kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa xogta wararka TV barnaamij wareedkeena door qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah guurkii dhexmaray haweeney al-shabaab ahayd iyo sargaal ka tirsanaa nisa gaasimooreyada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Faad Yaasiin oo markii ugu horeysay ka hadlay howlaha nisa iyo shaqooyinkii uu ka soo qabtay baarlamaanka 10aad ee Soomaaliya ee soo socda oo isu bedeli doona xarun ciidan Yaasiin Fari Saadaq John Indhacade iyo kuwa kale oo sanadkan xildhibaannimo isu soo taagay warbixin ay gaar ayaan idinkaga haynaa cadeymo muujinaya in askar Soomaaliya ay xasuuq geysteen Tigreega oo la helay iyadoo cadeymahan ay dhaliyeen su'aalo argagax leh oo ku saabsan isbahaysiga militari ee u dhaxeeya Abiy Ahmed Farmaajo iyo Afweeki siyaasadda rooble ee ku wajahan Imaaraadka oo si rasmi ah u dhaqaaqday iyo Imaaraadka Carabta oo 9 milyan ee madaxweyne Farmaajo ka xayiray xukuumadda rooble u galanaya maxaa ka jira in madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ka Itoobiya kala tageen kadib markii Muuse Biixi si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Addis Ababa wararka caalamka saaxiibayaal ee aad ku daawan doontaan xogta wararka TV waxaa kamid ah Taliban oo qayladaan u diraysa dalalka Islaamka xilli xaaladda ay ku cakiran tahay iyo dawladda Sacuudiga oo sheegtay in dadka xanta badan ay xabsi mutaysan doonaan qodobadaas iyo qodobo kale daawadayaal ayaad halkan ku daawan doontaan maanta waa Jimco taariikhdu waxay ku astaysan tahay 21 bisha January sanada 2022 waxaan ku xasuusinaynaa YouTube-keena subscribe saarto gambalaalkana furato si maalin walba ay ku soo gaaraan wararkan halkan soo gelino aan ku bilaabay doorashada golaha shacabka ee sanadkan ayaa waxaa laga yaabaa in saraakiil ciidan ay xildhibaannimo ku soo baxaan marka loo eego hanqaltaaga siyaasiga ah 25 bishii November sanadkii hore 2021 ayaa gaashaan la saray Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud Yaasiin Fari waxaa loo doortay xildhibaan golaha shacabka ah kursigu uu ku soo baxay sargaalkaasi nabad sugidda ka tirsan ayaa ahaa mid ka sumadiisu tahay hob 67 inkastoo guddiga xalinta khilaafaadka ay hakiyeen saxaashihiisa natiijada kursigaasi haddana dhowr isbuuc kadib waxay soo saareen war saxaafadeed lagu fasaxay guusha uu gaaray Yaasiin Fari tahay mid sharci ah habkii loo doortayna ay ahayd hanaankii loo dejiyay habraaca doorashada sanadkan doorashada golaha shacabka waxaa iyaguna hami sare leh oo in la soo saarana ay u badan tahay oo ka tirsan ciidanka dawladda kuwaas oo raadinaya kursi xildhibaannimo kursiga sumadiisu tahay hob 248 oo doorashadiisu ka dhacayso Dhuusamareeb ayaa waxaa la hadal hayaa in la siin doono Saadaq Umar Xasan John taliyihii hore booliiska gobolka Banaadir kursigaasi waxaa hadda ku fadhiya mar kalena inuu tartamo doonaya xildhibaan Maxamed Axmed Abtidoon Yare beesha Cadaadad degta ayaana laga sugayaa cid ay u go'aamiyaan kursigaasi warbaahinta xogta wararka TV ma xaqiijin karto in Saadaq John oo dagaalkii Galmudug iyo al-shabaab wada galeen deegaanada Camaara Bacaadweyn iyo Wasiil madaxweyne Qoorqoor uga abaalgudi karo xildhibaannimada uu doonayo balse xogaha hoose ee la ogaaday ayaa ku waramaya in xiriir hoose ee siyaasadeed uu ka dhex jiro Qoorqoor iyo Saadaq John lana saadaaliyay kursiga hob 248 in lagu soo saaro kursigaasi ayaa kamid ah liiska kuraastii dhawaan guddiga doorashada ee Galmudug soo saareen in doorashadiisa la qaban doono lamana oga cidda ku guuleysan doonta General Saadaq John iyo xildhibaan Abtidoon Yare waxyaabaha kale ee doorashada xiisaha sanadkan u yeelaya ayaa waxaa kamid ah in musharax General Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacade isna xildhibaannimo soo taagay kursiga sumadiisu tahay hob 138 uu raadinayo Indhacade waa midka uu ku fadhiyo ganacsade Siciid Nuur Griish hase ahaatee lama sheegin weli cidda General Indhacade ku taageeraysa inuu guul gaaro akhbaarada la helay bil ka hor ayaa sheegaya in beesha iskale kursigaasi ee xildhibaannimada sanadkan siinayso musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame balse weli Master Shakuur ma uusan ka hadlin warkaasi la isla dhex marayo labada generaal ee xildhibaannimada doonaysa gaashaan la guuleystay marka lagu daro iyo kuwa kale oo laga yaabo in dib ka soo baxaan ayaa la ogeyn waxay ku soo kordhin doonto baarlamaanka 10aad ee Soomaaliya oo doorashadiisu muddo badan hakad gashay isqabqabsi jira awgeed dhanka kale hadii aynu eegno agaasimihii hore ee nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA ayaa markii ugu horeysay ka hadlay howlaha NISA iyo shaqooyinkii uu ka soo qabtay wuxuuna daabacay maqaal nuqul kamid ah ay daabacday BBC-da Fahad oo lagu yaqaano inuusan saxaafadda ka hadlin kana soo muuqan sawir iyo cod toona ayaa muuqaalkan kaga sheekeeyay waxyaabihii u qabsoomay NISA tan iyo intii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu Faad Yaasiin u magacaabay agaasima ku-xigeenka hay'adda NISA 15 bishii Agoosto 2018 xilligaas oo markii dambe uga sii gudbay
inuu noqdo kusimaha agaasimaha nisa ee muddo dheer kadib markii cusmaan xuseen cusmaan uu tartamay madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya. Fahad waxa uu maqaalkiisa ku sheegay in waxa ugu weyn ee uu aaminsan yahay ay tahay helidda xog sugan iyo dhismaha hay'adda sirdoon oo yoolkeedu yahay in ay ka tartanto kuwa gobolka iyo adduunka iyo sidoo kale dhismaha kalsoonida shacabka. inkastoo maqaalka yahay mid aad u kooban xogta ku jirtana ay aad u koobneed, haddana waxaa jira meelo si aan faahfaahsanayn uu sawirro uga bixinayo xogo xasaasi ah oo amniga ku saabsan kuwaas oo quseeya tirakoobyo. waxa uu markii ugu horeysay qiray jiritaanka ciidamada loo yaqaano ilaalada shacabka ee dharcadda kuwaas oo uu Fahad si weyn ugu faanay waxqabadkooda. meelaha qaar Fahad waxa uu soo qaatay tusaalooyin uu ku muujinayo horumarka laga sameeyay nisa, waxaana ka mid ahaa in la ogaaday haweeney guursatay sargaal nisa ka tirsan iyadoona ay tahay xubin sare oo al-shabaab ka mid ahayd. sarkaalkii waxaa la faray inuu caadi iska dhigo lana noolaado si buuxdana uu soo wada helo xogta shabakada ay la shaqeyso howlgalkaas. wuxuu sahlay in la soo qabto 12 ka tirsan maafiyada shabaab oo meelo kala duwan shaqo ka waday, waxaana loo gudbiyay baaritaan kadibna markii lagu helay dembiyo ayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku riday xukunno kala duwan ayuu ku yiri maqaalka Fahad Yaasiin. ma uusan magacaabin haweeneyda mana uusan sheegin wixii ku dhacay markii dambe. ugu dambeyntiina saaxiibayaal qodobka dibadda haddii aan eegno maamulka Sacuudiga ayaa ka digay in qof kasta oo faafiyo warar aan sal iyo raad lahayn aysan ka aamusi doonin xabsina uu mutaysan doono kaasoo 5 sano iyo ganax lacageed. arrintan ayaa timid kadib markii bandhig faneed ka dhici lahaa magaalada Riyaad ee laga baahiyay warar online oo sheegaya in dumar da'yar la farxumeeyay xilli ay isku dayayeen inay guryahooda u soo laabtaan. maanta waa naga intaa daawadayaal barnaamij wareerkeen ad ka daawanayseen xogta wararka TV mar kale iyo barnaamij noocan oo kale intaan kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.